السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومر kale iyo barnaamijkeeni aynu kaga hadlaynay alaaba arrimaha saxaafadda taasoo ay naga soo codsadeen daawadayaasha nagu xidhan haddaba halkan waxaan ka bilaabi doonaa casharro taxane ah oo ku saabsan arrimaha saxaafadda kaasoo aan ugu mahadnaqnay layliga saxaafadda haddaba barnaamijkeena koowaad waxaan kusoo qaadan doonaa sugnaanta wararka haddaba suxufi waxaa mas'uuliyad weyn kaa saaran tahay inaad hubiso xaqiiqooyinka ku salaysan xogta aad u gudbinayso bulshada waqti walba taasoo saameyn aad u ballaaran ku leh arrimaha saxaafadda haddaba qodobka koowaad waxaan ka hadli doonaa sugnaanta warka waxaa loola jeedaa xaqiiqada iyo run ahaanshaha warka aad gudbinayso taasoo sida badan saameyn weyn ku yeelata saxafiga marka uu galo qalad taasoo uu ku baahiyo warar aan sugnayn meediyaha haddaba tani waxay burburisaa xiriirka ka dhexeeya saxafiga iyo bulshada waxaana ka baxa meesha is-aaminaadii ka dhexaysay saxafiga iyo bulshada uu wax u gudbinayo kani waa qodobka ugu muhiimsan oo waajib ku ah saxafi kasta haddaba runtu waa shayga ugu muhiimsan ee looga baahan yahay inuu ku dhaqmo qof wal oo saxafi maadaama ay nahay dad islaam ah diinteena suuban waxayna faraysaa inaan ku dhaqanno runta iyo sheegitaankeeda waayo aayad quraan ayaa waxay ahayd haddii war idin yimaado iska hubiya xaqiiqadiisa hana faafinina ilaa xaqiiqsataan taasoo ah arrin lagu ilaalinayo xidhiidhka ka dhexeeya mujtamaca islaamka haddaba sidaas la mid ah dhammaan warbaahinta caalamku waxyaabo fara badan waa ay ku kala duwan yihiin laakiinse qodobkan dhammaantood waa ay ka siman yihiin haddaba suxufi runta aad sheegayso lafteedu waxa ay leedahay saameyn kaaga imanaysa dadka aad wax ka gudbinayso oo laga yaabo inay u arkaan inaad lid ku tahay danahooda gaarka taasoo badanaa keenta khilaafka iyo iska horimaadka saxaafadda iyo maamulka ka jira hadba meesha ay ka hawlgeliyaan tusaale waxaan usoo qaadan doonaa dhacdo qof kasta oo ku nool dunida dhagahooda gaadhay oo ahayd dilkii loo geystay saxafigii caanka ahaa jamaal khashoggi waxa uu wax ka qori jiray arrimo ku saabsan siyaasadda iyo boqortooyada ka dhisan dalka sacuudi arabiya taasoo ahayd dhalasho ahaan dalka uu kasoo jeedo balse waxa uu ku noolaa dalka maraykanka halkaasoo jariirad kasoo baxda dalkaasi uu wax ku qori jiray haddaba xogaha uu gudbinayay ee uu qoriyay waxaa cadaawad aad u ballaaran ugu qaaday hoggaankii kasoo jeeday dalka uu dhasho ee sacuudi arabiya taasoo keentay in lagu dilo loona dilo si arxan darro ah dilkaasoo ay geysteen madaxda dalka sacuudi arabiya khaasatan dhaxal sugaha dalka sacuudi arabiya oo lagu eedeeyey inuu falkaas isagoo ka dambeeyey waxaana lagu dhex dilay safaaradda uu sacuudiga ku leeyahay dalka turkiga waqti uu la ballansanaa si uu uga soo qaato warqadda furniinka si uu u guursado xaas uu rabay inuu hadda la aqal galo balse ay jaanis ku heleen dad u arkayay inuu cadow ku ahaa danahooda gaarka kuwaasoo ku sameeyey jirdiil aakhirkiina qudha ka jaray googooye oo jarjaray hilibkiisa haddaba suxufi ama bise daawade taasi waxay ku tusaysaa sida ay runtu marmarka qaarkood kuu gelin karto halis kaaga iman kartaa xogta aad diyaarisay taasoo colaad gelin cidda ay khusayso taasoo waxaad teena oo xaqiiqi yahay oo jira bulshadu waxay u baahan tahay inay hesho xaqiiq dhab ah taasoo ku salaysan maamulka ay markaas ku hoos nool yihiin sidaasi la mid ah mar walba waxa uu khilaaf ka dhex dhacaa saxaafadda iyo maamulada dawliga ah ee goobaha ay ka howlgeliyaan ee ku yaala caalamka taasoo ah midaan cid gaar ah lagu aaneyn karin balse caalamku guud ahaan uu ka siman yahay carqaladahaas marka laga reebo wadamada qaar oo ay saxaafaddu xor tahay ama ay xorriyadooda u haystaan awood fara badan oo ay leeyihiin markaas balse markaan usoo noqonno marxaladda ku gadaamin saxafiyiinta soomaaliyeed taasoo laga yaabo in ay geliso xabsi iyo welibana in loo geysto dil toos ah waayo sanadihii ugu dambeeyey saxafiyiin badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay ku baxeen gacanta dad u arkayay cadow oo u geystay dilal haddaba suxufi waxa muhiim ah inaad noqoto mid ku sifooba run sheeg haddaba maanta daawadayaal waxaan kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeennan oo ah kii koowaad oo aan kaga hadlayno arrimaha saxaafadda barnaamijkan waan ugu magac darnay layliga saxafiga haddaba daawadayaal si aad uga faa'iidaysato barnaamijkan fadlan subscribe saar share garee wixii fikra ee aad nala wadaagaysana commentiga noogu reeb adigoo mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وبركاته